anigu waxaan kaga tegey lacag 65,000 oo dollar marka lacag la dhaho iyo 25,000 oo dollar cadaan ah. lacagtaas meel alaalay meelay ku dambeysay anigu ma hayo, laakiin xisaabteeda baan hayaa. waxaa lee xaqiijiyey in lacagta la raray, mas-uuliyaddeedana waxaa qaadaya khasnajigii iyo maamulihii bangiga xukumayey, maadaama lacagtan ay ahayd lacag aanay somalilan lahayn, ay lahayd shacabka reer laascanood. 3 qodob oo maadaama uu dhaqaale ku saabsan yahay, qaybta hay-adaha oo la oran karo waa qaybaha ugu muhiimsan ee dakhligu ka soo geli jiray maleeshiyaadka musabixii ka marqaadata. qodobka labaad oo ah cashuuraha iyo dhulka ilaahay ina siiyey ee hodanka ah, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah maadaama meeshii cashuura imaadeen waxaa jirta khasnad ay leedahay maamulka ama systemka meesha ka jira loo dhaho bankiga iyo waxyaaladihiisu meeshii ay ku dambeeyeen iyo sida ahayd. haddaba waxaan doonayaa sida loola socdo gobolkan xagga hay-adaha marka laga hadlo waxaa saarneed dhot. cidda saartay waxa weeye maamulkii markaa ka shaqaynayey oo siyaabo fara badan isagu uga faa'iidaysanayey inuu dhotkaas saaro. waxaad ogtihiin magaalada laascanood caasimadda gobolka sool iyo magaalada caynaba kaaf iyo kala dheeri weeyaan, waxaana kalifay mashaariicdii loogu talagalay magaalada laascanood ayaa waxaa loo leexiyey caynabo iyo meelo yar oo kasii hooseeya. haddaba waxaan doonayaa simbal ama waxyaabo aan ka soo qaadanayo qaybta hay-adaha ee ka howlgeli jirtay laakiin gobolkan cambaar lagaga riday. waxaa ka mid ah mashruuca SDF oo aad wada garanaysaan, mashruucaas horumarinta. waxaa ku xigay mashruuca GBLG-ga dowladaha hoose. aad ogtihiin inaanu gobolkanna aanay waxba kaga jirin. mashruuca kuweytiyaadka oo aad ogtihiin lacag badan oo aad u tiro badan intii lagu soo qaatay laascanood wax yar oo aan waxba ahayn farguudkooda qolo dheer meelaha laga taagay. taas micnaheedu waxay sheegaysaa dalkan inaan rajo fog aanay maamulkaas ka lahayn. waxaa jirtay mashruuc la dhaho GBIZ oo Jarmal ah isaguna. waxaa kaloo jirtay mashruuc la dhaho World Bank oo isaguna deeqaha iyo horumarinta. waxaa kaloo jirtay Save Children oo iyaduna ka shaqayn jirtay waxbarashada caafimaadka iyo bahalkii UNICEF. waxaa kaloo jirtay mashruuc la dhaho 2.4 ee la bixin oo cashuuraha oo dekedda berbera ay ugu talagaleen in gobolkan lagu horumariyo, laakiin lacagtaas total siday ahaydba ay ku dhici jirtay khasnad uga furan bangiga dhexe madaxweynaha maamulkaas musabixi. intaasoo hay-adood cidda wax ku qabtay ama dhaqaaluhu ka soo geli jiray ma aha gobolada sool sanag iyo cayn, waxa weeye maamulka SNM bay faa'iido ku qabday. waana waxyaabaha ay haddeer ay ka simri laayihiin ee maalin dheeli ciyaaladooda ay meydkooda u soo fogeynayaan. laakiin waxaan u malaynayaa maanta in la isku miyirsaday, kaasuna ninkii lahaa uu tashan doono iskana dhammaaday. haddaba waxaan leenahay wixii hore tage xisaab haddaad u baahan tihiinna diyaar baan inoo nahay, maadaama aan nahay dadkii waxbartay systemkan ku jiray wax badan ogaa. taas waa taa. waxaan doonayaa qodobka cashuuraha ama dakhliyada ama lacagaha ururintooda iyo bixintoodu siday kala ahaayeen. waxaad la socotaan maamulkii meeshan haystay marka dekedda berbera laga reebo iyo wajaale, meesha saddexaad ee dakhligu ka soo geli jiray waxay ahayd gobolka sool iyo sanaag. lacagaha ka soo geli jiray celcelis markaan sameeyey 3 biloodii waxa weeye 1,300,000 ilaa 1,400,000 lacagaha ka soo geli jiray. waayo waxaad ogtihiin in meeshan ay tahay deked qalalan oo xuduud ku taala. run ahaantiina wax alaale wixii ka yimaada ama deegaamada Puntland ama Soomaaliya toos ay u soo mari jireen waddankan. waxaad la socotaan ilaa iyo from sanaag ama cergaabo ha noqoto liidka marka lasoo raaco xudun arbogas ilaa intaasaa loo socdo ilaa laascanood
sidaa loo socday ilaa iyo Buuhoodle iyo xadka Ethiopia waxaa la dhex marayaa ama la digayaa oo dhulka ACC taa micnaheedu waxa weeye meeshanu inay tahay deked qalalan waxaana la socotaan maalmihii u dambeeyey magaalada Gambare in laga sameeyey deked qalalan oo ay ka arkeen dantooda iyo dhaqaalahooda oo run ahaantii la oran karo waa meel aad iyo aad muhiim u ah cadaynaysana inay meeshan ahayd deked qalalan lacagtii kharashka dakhliga soo xarooda bisha waan sheegay waa inta 1 milyan iyo 300 1 milyan 400 waxaan hadaba doonayaa inaan sheego lacagta bixi jirtay kuwaatarka ama 3 biloodii waxa weeye lacag cadadkeedu mar uu yahay 300 iyo 30,000 oo dollar run ahaantiina waxa lacagta qaabka u yareynaysa keenaysa waxa weeye wasaaradaha qayb waxa ku qornaa laba qof ama 3 ama 4 ama 5 run ahaantii waa meel la oran karo hamin fog maamulkaas uu kama lahayn waxa kaliya ay ugu farabadneed oo la oran karo waxba qaadan jiray oo wasaaradda caafimaadka oo bishii ay 3 biloodii ka bixi jirtay 3,000 oo dollar wasaaradda caafimaad waxbarashada iyaduna ah 156 3 biloodii run ahaantii labada marka la kala jaro waxaad arki kartaan lacag 800 oo kun oo dollar inay 3 bilood safe noqon jirtay bangiguna kama furneen laanta Laascaanood wuxuu ka furnaa xarunta Hargeysa iyagana ma jeclan jiray wax alaale wixii gacan dadka gobolka nagu jiraana ma jirin cidda had inay daba gasho ogaato waxay ahaayeen barasaabada iyo taliye qaybeeda kuwaasuna run ahaantii waxa la oran karaa dad aragti dheer ma ahayn marka la eego xagga xukuumadda dad ku mitala wasiirada iyo xildhibaanadu xaq bay u lahaayeen in gobolkan wixii ka soo baxaa ay dib u eegaan laakiin iyaga waxa loogu goodir jiray nin aan xog hayn weeyaan adiga ayaa lagu kabaa taas in gobolka la kabi jiray ana maanta beeninaya qoraalkeeda iyo systemkeedana ana u haya maadaama aan ahay nin dalkiisa iyo dadkiisa lixjaalo in badan ay ka haysay haddana doonaya inay ka saayso taas cashuurahana qaabkaasaan kaga baxaya waxaa ay gobolka soo geli jirtay aan xaqajiyey waxaan sheegayaa bishii koowaad waxay bangiga yaalay 731,000 oo dollar lacagta in la raro waa la isku dayay run ahaantii anigu waan hor istaagay laakiin biyo ka badan iyo col ka badan labaduba way kaafiyaan baa leeyahay maamulka Musabixi iyo qolada bangiga iyo xisaabiyaha guud oo inay Daawud ahaa markaa waxay ku tashadeen maadaama lacagta aan la rari karin inay farsamada si kale noogu dhigaan waxay sameeyeen inay lacagtii ku bixiyaan bishii koowaad ku bixiyaan 4 milyan iyo 500 oo milyan iyo 500 oo kun milyan iyo 500 oo leena oo run ahaantii lacag aad u dad badan markaas ah inay militariga siiyaan oo lacagta laga kani jiray meesha la dhaho berbera ay bangiga Laascaanood si ay markay arkeen inay gacan cruise hawshoodu tahay meeshan ay ka baxayaan inay lacagtiisa u qaataan waxaa kaloo jirtay lacag 1 milyan iyo 500 ah iyadana in loo raray meesha la dhaho Caynaba run ahaantii hawshu markay barta marisay waxaa dhacay bishii labaad dagaal 6deedii anigu waxaan kaga tagay lacag 65,000 oo dollar marka la dhaho iyo 25,000 oo dollar cadaan ah lacagtaas meel alaalay meel ay ku dambeysay anigu ma hayo laakiin xisaabteeda waan hayaa waxa la xaqijiyay in lacagta la raray mas'uuliyadeedana waxa qaadaya khasnajigii iyo maamulihii bangiga xukumayay maadaama lacagtan ay ahayd lacag aan Soomaaliland lahayn ay lahayd shacabka reer Laascaanood oo laga qaadi jiray ama nin bariis keensaday ama nin caana keensaday ama nin xaabo keensaday run ahaantii anigu waxaan hayaa waxa weeye waa qoraal iyo dokumenti xeerka bangigu wuxuu qorayaa lacagta inay ka saari karaan xisaabiyaha iyo maamuluhu
maadaama aan lacagta aan waxba aanan ka ogeyn run ahaantiina la sheegay badankeedii in meesha laga saaray mas-uuliyaddeeda waxay u taallaa maamulka ACC hadduu ilaahay idmo lacagtaasuna lacag u Somaliland lahayd ma ahayne waa lacag ay lahaayeen bangiga iyo shacabka magaalada Laascaanood ama ACC